السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا السلام يا كل جين سأودنتهن وصير الضاهي هلا يقرأ لي هذا وإن شاء الله بريها نودن أنا إذا بديت قري لا فيديو كي قدام بي وأنا إذا كل أحد لي since that time ما في عنا واحد سنة إن لما عدينا إنه COVID-19 هي لكن update كان شخصيات وحوالي مركي أن شبتال كوعي أو هربت النبرة عافمت كل وعي أو وعي مرة بحيدة هايان استعمية كان موقدة لكن جورجا جتشو كتانا نفتك وعشومين سدا سيدة هايان الحمد لله لا نافي يقوم علنين ما أنت كنت بنا حنون سنة هاي لك وفي عنها وصفي عنانا استعمها عن سكو أركي إنتان البرنامج كنت سكروا وحوالي قندو لكن قندadayda mayna gaarsiisnayn 37 iyo degree iyo 38 iyo 40 bay gaarsiisnay kor xanuun lafa xanuun kala goysyada aad ay xanuunaya dhadhankii iyo urtii ayaa iyadana iga dhuntay 3 maalmood oo la soo dhaafay markasta waa wacaaye وانا لا تشنايو وحي عافمادك هاسا اهاتي وحي يقول لك ترتد طلده اسيانا الراعايه waxa kale iyadana xusuus mudan intaan xanuunsan 9 maalmood anoo ku jiro gurigayga oo aana banaanka u bixin xanuunkayga bilowdaaniga marka macnaheedu waxa waaye in qoyskayga in gurigaas anoo joogo igu yimid waaye xanuunka marka ilaahi baa maaragtay wax bahaayo laakiin been ma sheegayo la ima test karaynin test la iguma sameynin lamana cadaynin inuu COVID-19 yahay laakiin ka markay la hadlo waxay dhahayaan waxa waaye sardhaban Soomaaliga sardhaban lagu dhahaa meel condition waxa Ingiriis lagu dhahaa Soomaali sardhaban lagu dhahaa marka sardhaban aan kale u garanayaa Soomaaliga way ballaaran yahay waxa laga yaabaa inkana wax kale u taqaanaya kan sardhaban u aqaana saslaajigad sardhaban kaasoo ii qabanayay waan iska fiicanahay isku soo kacay oo qabaysanay salaadeed waa tukana cunto waxa cuni kara cunaay bad laakiin la hadda aan idin la hadlaayo uriya dhadhan labadaba malihi wax cuntada waa iska cunaya laakiin mana isuxmi soo urayaan waxna ma ii dhamayaan marka waa amar ilaahay qadartana waan aaminsanahay oo waan maaragtay niyadayada waa ku degan tahay taas horta waa taa laakiin waxaan rabaa inaad kala hadlo waxa waa yaa la dhayalsanin marnaba ha dhayalsanin hadda waa kaas baabku ay xiran yahay kaliya inta qolkan ku jira ilmaha aan dhalay 3 ilan midnana hal qol kuma wada jirno qolkayga jiifka hadana aadana waa ay kaligay marka yaa la dhayalsanin waxyaabahan kale aan iska dhaadhicinay dadka muslimka kuma dhacay waxa soo dhamaatay waa ku dhacaa qof walba ku dhacaa muslim ku dhacaa gaal ku dhacaa waxba ku dhacaa diinta rabta aaminsana waxaana waa cudur qof kastoo ku dhacaya laakiin la isku roonaado oo la isku xiro qofaan laha qofci waa iga yaraaday aad u iga yaraaday qofca marka astaamahayga saas ay ahaayeen qofba si u qabanaya dadkan ku nool Yurub America iyo Canada iyo meelahaasi maragtay idinka dawladihiina idin ballan qaaday inaad maxay soo kabataan dadka shaqeynaya iyo kuwa shaqeynaya labadaba waxaad ogaataan horta meel walba ku noosho waa carra ilaahay waa ilaahay arladiis ilaahay dhulkiis cirka ka sarreeya waa ilaahay samadiis wax oo hadda weyn maaragtay meel oo alla arladiisa ahayn ma jirto qof sidaas needin ku degsada tan ugu walwalka badan waxa waaye qofka marka isbitaalka la geeyo aan isbitaal ma geeyna alxamdulillah ma baahanba gurigaaga joogsa ilaahay gurigaaga joog guriga la jooga hadaad neefta kugu ceshonta bas soo neefna ma ilaahay ma igu ceelin alxamdulillah wa fiicana haddana waa soo reysano yaaba xilligaan oo kala qandhow badan ay saaknaa jirto hadda ay masaarno alxamdulillah marka taas waa taas dadka isbitaalka la geeyo waxyaabaha ugu daran oo ku dhaceeyo waxa waaye cidlo qofkaaga ambalaasta markii lagu wacmo kula raaci karaba
inaa ogtiin in kala ma aqan ma kula raacayo haddii inta isbitaalka lagu geeyo la caddeeyo oo laga helo test lagugu sameyn kasto had testiga wayba yareeyeenba test lagugu sameeyana macnaheeda waxaa waaye absolutamento agtaada qof ma imaanayso qofkii marka cidlo iyo argagaxa ayaa uga sii daraaya xanuunkii haaya okay hadday noqoto oo tii rabbi kuu timaado isbitaalka lagu geeyo ma raba inaad ka naxiyo laakiin realityga waxaa dadkaaga waa lasoo wacaa qofkiina waa dhintaa la dhahaa idinkana ma imaan kartiin 14 berina weliba guriga inaa ku jirtiin waayo maadaama qof oo xanuunka haayo oo xanuunka u dhinta oo guriga idinkula noolaa marka waa cid la ciirsi la-aan dadka badanaa xaalad adagaa lagu jiraa waxaan si gaara rabaa inaa uga hadlo oon dul maro maanta maadaama markii ugu horreyso xanuunka masaa uga soo kaca aan hadlaayo ay tahay hadalkana aada ugu dheeraada ma rabo marka waxaan rabaa inaa aada ulin kala hadlo xilligan oo kaleeto xilliyada welwelka badan yahay werwerka ku haynaayo aada u badan yahay xilligan oo kaleeto marka haddii markii hore adoo caadi ah mental health problem iyo depression iyo anxiety xilligan oo kale anxietyga aada u badan yahay because anxietyga waa werwer maxaa dhici doona maxaa kugu soo socda werwer taas waxaa looga gudbi karaa inaa isxasiliso isdejiso nafta haddii lasoo doonto meelaa kaga baxsanaysid male laakiin tan ugu muhiimsan waxaa waaye talooyinka la bixinayo inaa raacdo inaa ahaato qof updated ah oo wax jiroo lagu hadlaayo og meel kasta waa google haddaa furto waxaa ka hor imaanaya fariinta coronavirus waxaa ka hor imaanaya wadaytas carabi ahaa lahaa ingiriis ahaa leeda wada alla wada ka joogto adduunkii oo dhan qodka alerta waa la siinaa marka wixii xugun ilaahay ah xugun ilaahay waa aad wax maki qaban kartid haka adinaa dadaasho lagugu leeya dadka kalena aadan hasin irsaaqada rabbiyaa bixiyo ilaahay irsaaqada bixiyo dadka wadanka ku nool inaan ku dayano ma aha anaga adiga dadkaana aad joogto ama shaqe ama shaqeyn xilligan adag lagu jiro waa la kafaalo qaada noloshaada ilaahay ka sukow waa la kafaalo qaada haddaa shaqaynaysana waa lagu kabaaya haddii aadan shaqaynayninna mar walba waxbaa lagu siinayay haddii aad ganacsi iyo kambani iyo shirkad iyo wax laheedna iyadana qaab kale wax lagugu siinaya dadkan UK jooga haddaa si gaara ula hadlo 6 bishan maanta 2 waayo bisha abriil 6deeda laga bilaabo ayaad arki doontaan warqada idin soo dhacaaya halkaasaana laga bilaabaya 6 abriil lagaaga bilaabaya lacagta lagugu caawinayo hal sano camal waa laga qaybinaa marka 12 bilood loo qaybinaa 6 abriil ee sanadkan 2020 ilaa 6 kale abriil ee sanadka 2021 hadda saa u taqaan ayaa loo qaybinaa lacagta lagugu caawiyayo marka irsaaqada ilaahay aa bixi istajiib ragga Soomaaliyeed oo badanaa tagaa sida wadaaya oo tagsiga ku cararaya qoysas badanaa arkaayo qayladooda isu yeerayso waxaa waaye tagsiga daawada macnaheedu self employed aad tahay qof iskiis u shaqaystaa tahay maadaama aad tahay qof iskiis u shaqaysto macnaheeda waxaa waaye dowladdu way ku kabaysaa self employed kii dadka ahaa ama dadkii iskood u shaqaysanayo waa la kabayaa ayagana laakiin waxaa laga yaabaa sida kuwaan loogu bilaabayo bishaan dhammaadkeeda ama bishaan raggeeda inaan loogu bilaabin ayaga oo dib u yaro dhacdaa dhici karta laakiin mar kastoo lagu kabaayo inta baxdo aad xaaskee caruurta xanuun u keeni lahayd qof immune system u leh waxaan ma jirto qof kasta ku dhaca waxaa kuu fiican inaad badbaadiso gurigaagana badbaadiso oo joogto gurigaaga iska ilaawa taxi xisna iska ilaawa because taxi is a customer service camal waa adoo qof sida qof dad badan ka dhex shaqeynaa camal ama dadaa qaaday mahana ilmiina hau keenin cudur iyo xaasaskiina cudur hau keenin oday rabta uur iskale oday rabta nuujinayso ilmo yaroo yacisa
dad badan oo ku dhacay dad badanaa dhintay 563 qof aa dhimatay waddankan shala keliya taar hadday gasho waa dhimahee madaxda guriga ku jiro laakiin dadaalaa lagugu leeyahay inaad dadaasho inaad dadaasho lagugu leeyahay marka taasna waa taa